السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وانا idin salaami caalamka meel kastaad ka joogtaan. Salaan kadib walaal ma kugu adag tahay inaad samayso waxyaalaha khayrka ah, yacni waxyaalaha aad Ilaahay ugu dhawaanaysid, sida inaad sadaqa la baxdid, inaad salaad tukatid mid waajib ah iyo mid sunno ahba, inaad soontid soon waajib iyo soon sunno ahba mid ku doona ha ahaada, iyo waxyaalaha la midka ah oo khayrka ah inaad salaatuleel u soo kacdid iyo wixii kale oo la midka ah. Sidoo kale ma kugu adag tahay inaad joojisid xumaanta, yacni tusaale ahaan inaad dhageysatid heesaha noocay doonaan ha ahaadaan, inaad daawatid filimaanta iyo waxyaabaha la midka ah. Hadday jawaabtaadu tahay haa, walaal marka ha walwalin, waxaan waa wax si fudud lagu joojin karo. Waxaan kuu sheegayaa hal qaacido, halkaas qaacido haddaan qaadatid waxaan rajaynayaa inay wax weyn kaa caawin doonto. Halkaas qaacidana wax kale ma ahan, waa qaacido iska yar. Ilaahay qur'aankiisa waxa uu ku leeyahay إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. aayadan waxaa ka dhex fasiranaynaa salaadu inay qofka ka reebayso xumaanta. Inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar. Marka walaal waxaan kaa codsanayaa haddaad doonaysid inaad waxaasoo dhan iska joojisid, kaliya ku dadaal salaada. Salaadaada hadday wanaagsanaato, xaqiiqatan waxyaalaha kale dhammaantood way wanaagsananayaan. Tijaabi adiga gacantaada ku tijaabi, markaas ayaad arki doontaa. Salaada wanaajinteeda waxaa ka mid ah inaad ku dadaashid axkaamteeda, arkaanteeda inaad baratid oo kadibna ku dadaashid si wanaagsanna u gudatid. Markaas kadib salaadaada way ku hagaagaysaa. Waxa ugu horeeya qofka markii uu tago aakhiro ugu horeeya laga hor xisaabinayo sida wada ognahay wax kale ma ahan waa salaada. Waatuu nabiga dhahay sallallahu alayhi wasallam, hadday salaada qofka u hagaagto camalkiisa inta kale dhamna way hagaagayaan, laakiin hadday salaada ka xumaato camalkiisa inta kale oo dhamna way ka xumaanaysaa. Walaal salaada waa mid Ilaahay kuu dhaweynayso xaqiiqatan. haddaan ku soo laabto qodobka axkaamta iyo waxaa laga yaabaa dadka inay ku adkaato meelaha laga barto. Waxaan kuu sheegayaa meel fudud oo aad ka baran karto, wax kalena ma ahan, waa qadkan aad hadda ku dhex jirtid keliya. yacni youtube-ka xitaa youtube-ka keliya waxaad ku qoraysaa axkaamta salaada, waa arkaysaa waxyaalo muuqaalo badan, kumanaan muuqaal ayaad ku arkaysaa oo salaada bis ka hadlaayo iyo axkaamteeda arkaanteeda, aadna waad uga faa'iidaysaa insha Allah biidni Illaahi kariim. waxaan rajaynayaa inaad qaacidadan aad qaadan doonto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaal wax yar waxaan idinka codsanayaa, muraad yar ayaan leeyahay, qofkii ducadiisa la aqbalay Ilaahay ayaa og. waxaan idinka rajaynayaa inaad ii soo duceysaan. mahadsanidin.